go'aan agaarin adiga oo aanan fikirin. go'aan kasta aad gaaraysid ka hor fikir, sababtoo ah waxay muhiim u tahay nafsadaada. si aad hadafkaaga u gaarto, hiigso meel hamigaaga ka fog. safar kasta oo dheer wuxuu ka bilowdaa hal tilaabo oo aad hore u qaaddo. marka waa inaad tilaab qaaddaa si aad u gaarto hamigaaga. daqiiqad waliba oo ku soo marto waa fursad si aad noloshaada wax uga beddesho. ha sugin inuu qof kuu yimaado oo kuu tilmaamo noloshaada meeshay kaa jirto. mar walba noloshaada adigay muhiim kuu tahay inay ogaatid meeshay ka jirto guusheeda. walaalkaygiiyow, habeen kasta oo mugdi badan waxaa ka dambeeya maalin aftiin badan. ee walaalkaygiiyow, maalintaadii wanaagsanayd ee kuu soo dhowdahay hami sare lahaw. nolol aan jacayl lahayn waa sida geed aan caleen lahayn. ee walaalkaygiiyow, qof waliba jeclow, qofkii ku neceb jeclow. middaas adigay wuxuu kuu tahay wanaag. xaasidnimadu iska ilaali, xaasidku horumar ma gaaro. walaalkaaga hadduu kugu yahay xaasid, waxaad samaysaa u dhoola cadday. wax kasta oo dhalaalaya araacin, sababtoo ah dabkaba waa ugu dhalaalaa. gabarh kastaoo qaabisa jirkeeda waa sida dhinaca qorigoo kale bacda laga fiiqay. dhinaca qoriga markii bacda laga fiiqo, cayayaan kasta ayaa korkiisa ku soo yaacda. gabadhii isqaabisana sidaasoo kale ayay la mid tahay. ee walaasheedii astura jirkaaga, middaas ayaa qiimo ku leedahay. fikirkaaga beddel si aad dunida u beddesho. wixii aad maanta beeratay ayaad beri helaysaa. wax badan aqri si aad wax badan u aragto. saaxiibbada dhabta ahi waa sida gacanta iyo isha oo kale. gacanta hadday xanuunsato isha way ilmaynaysaa, ishana hadday ilmayso gacanta way masaxaysaa.